بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن داودياشا قيمها بدن وميل والبو جوجتان يسي والبو موقالك يدين سو غاري waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka garow gudoon sanadii labaad oo xiriir ah ayaadna barnaamijka Raja TV ka daawanaysaan barnaamijka maalinkii 26aad bisha barakaysan ee Ramadaan ee sanadan ayaana maanta halkan aad ka daawo doontaan sanadan barnaamijka waa xiiso badan yahay BB Bangi ayaana barnaamijka markaasi taabagelintiisa sanadan iska leh Raja TV ayaana barnaamijka ka daawanaysaan inta hawada ka baxaya daayir diin ayaan la socodsiinaya Xabsan Axmed Baawe alaaba barnaamijka farsamada ayuu kaaga waxaad mar kale ku soo dhawaataan barnaamijka xiisaha badnaa ee garow gudoon waagaag daawadayaal waxaan markaan maanta soo dhaweynaya qofkii ugu horeeyay ee nasiib u yeesha inuu markaasi barnaamijka garow gudoon qayb ka noqdo ku soo dhaw magacay Idris Ali Aadan waya Idris barnaamijka hore ma wada kalantay maya markii ugu horeysay waya su'aalahan waxay ku xuseen 1 ilaa 4 haye marka lambar aad qabsanaysaa haye kadibna su'aashii kaaga soo baxdan ku weydiinayna haye saddex lambar 3 waya lambar 3 waxa sheegtaa caasimadda ama magaalada madaxda gobolka Nugaal ee Soomaaliya gobolka Nugaal oo Soomaaliya oo caasimadda waxa waaye Muqdisho xamar waaye waa ma santa ma haleelin thank you waaga garow gudoon ayaa daawanaysaan daawadayaal ku soo dhawaado magaca ku bilaabay barnaamijka magacaygu Maxamed Ibrahim Aadam waay Maxamed barnaamijka hore ma wada kulan wiliga hore uma kulmin maanta kugu horeysay waay maxaa rajaynaysaa maanta su'aal liidi doon inaad guulaysan doon iyo waxaan salaamayaa bulshooyinka ku dhaqan Muqdisho waay anagoo ka wakiila salaanta waa ka qaadaynaa waa hagaag su'aalaheena waxay ku xusnaayeen Maxamed waa 4 1 ilaa 4 marka lambar qabso 1 su'aal diiniya ku xusan waxa sheegtaa saxaabiga caanka ahaa ee Aba Hurayra magaciisa laga rabaa Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi hore ma sha Allah si kaliya laaba kaga jawaabtay maxaa ku suurtageliyaa isleedahay su'aasha insha Allah qofkii diinta bartay u fududaan su'aasha waayahay aada u maasan tahay anagana waa ku faraxsanahay wiil dhalinyaro intaan leeg ina su'aashaas ka jawaabtid hadiyadaada lagu tala galaa gudoomaysa maxaa fariino u diraysaa barnaamijka iyo kitaabgeliyaha BB Bangi waxa dhaya waa maamsadtiin hadiyadaas inoo gudoomay idinkana salaan iyo wax kasta amaan idinkaas kale sharaf iyo amaan wax la sheegay idinkaas kale idaacadaha iyo TV-yan iyo ka mudan wax amaan la siiyo aada u maasan tahay thank you garow gudoon ayaa daawanaysaan daawadayaal waxaan ku soo dhaweynayaa markaan wiilkan ku soo dhaw barnaamijka magaca waa ku dhawahay magacayga waa Maxamed Deeq Axmed waay Maxamed Deeq barnaamijka hore ma uga kulan maya markii ugu horeeyay waayahay su'aalaheena waxay ku xusnaayeen 1 ilaa 4 lambar 1 waa naga baxday waxaan dooranayaa lambar 3 waxa sheegtaa caasimadda gobolka Nugaal ee Soomaaliya caasimadda gobolka Nugaal ee Soomaaliya waa Garowe Garowe waaya si sax ah kaga jawaabtay waxaana markaas heli doontaa su'aasheen hadiyadii ku xusneed hagaag markan jawaabtii saxda ahayd uu gartay wuxuuna gudoomayaa markan hadiyadii lagu talo maxaa fariin u diraysaa BB Bangi barnaamijka oo iska leh waxaan dirayaa inuu sii wadaan dadka Ramadan maadaama lagu jiro dhiirigelinta waan wax baliyaynaa sida ay barnaamijka u wadaan su'aal baa lagu weydiiyay si sax ah kaga jawaabtay maxay kaaga dhigantaa wallahi waa farxad iyo dhiirigelin ay tahay dadka soo qabanqaabiyana oo u ducaynaa inay sii badiyaan ajarna Ilaahay ka siiyo aada u maasantaa sidoo kale aadna hagaag daawayaal garow gudoon ayaa daawanaysaan waxaan markaan soo dhaweynayaa wiilkan dhalinyarada ku soo dhaw barnaamijka magaca ku bilaabay magacaygu waa Axmed Abdurrahman Aadan waay Axmed barnaamijka hore ma wada kulantay maya markii ugu horeysay waayahay su'aalaheena waxay ku xusnaayeen 1 ilaa 4 laba lambar way naga baxday waa 1 iyo 3 waxaa noo soo haray 2 iyo 4 lambar 2 waxaa sheegtaa magaca saxda ee saxaabiga loo yaqaano Abubakar Sadiq Abdullah bin Mudalib wali Abdullah bin Bakr Abdullah waxaa laga rabaa saxaabiga Abubakar Sadiq magaciisa saxda laga rabaa Abdullah bin Sadiq
waaya maada haleelin aadaa u mahadsanta waa hagaag garoo guddoonaya weli daawanaysaan wiilkaan kusoo dhawo barnaamijka magaca waa ku dhawaa magacayga mursal ibraahim saaqbaalna waaya mursal barnaamijka markii ugu horreysay miyaa haa waaya su-aalahan waxay ku xusnayeen 1 ilaa iyo lambar 4 laba lambar way naga baxeen oo 1 iyo lambar 3 waxaa noo soo haray 2 iyo lambar 4 lambar 4 waaya lambar 4 waxaa ku xusan waxaa sheegtaa warshadii rasaasta Soomaaliya gobolkii degmada ay ku taalay galbaari waaya maada garaw maasanta hagaag garoo guddoonaya weli la socotaan daawadayaal waxaan soo dhaweynayaa ninka kusoo dhawo barnaamijka magaca ku bilaabaya magacaygu waa Ducaale Maxamed Saalim waa Ducaale barnaamijka hore ma la kulan may waa markii ugu horeysay walaal su'aalahan waxay ku xusnayeen 1 ilaa lambar 4 lambarka labaad iyo lambarka afraad ay noo soo haray waxa ay naga baxay lambar 1 iyo lambar 3 markaasi 3 marka lambarka afraad warshadii rasaasta Soomaaliya magaaladii iyo gobolkii ku taala laga rabo warshada rasaasta gobolada dhexena taa umaleynaa sax hada uma santa maada haleelin waa hagaag garoo guddoonaya la socotaan markaan daawadayaal waxaan soo dhaweynayaa wiilkan kusoo dhawaada magaca waa Cabdullaahi Maxamed Cali maya waa ii kow su'aalahan waxay ku xusnaayeen 1 ilaa iyo 4 laba lambar waa naga baxday oo 1 iyo 3 waxaa soo hartay 2 iyo 4 2 iyo lambar 4 lambar 4 warshadii rasaasta Soomaaliya magaaladii iyo gobolkii ku taala laga rabo wallaahi ma garanayo hada uma santa hagaag daawadayaal garoo guddoonaya weli la socotaan maalinkii 26aad ayaadna halkaan ka daawanaysaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadii labaad oo xiriir ayaadna barnaamijka ka daawanaysaan Raj TV BB Bank ayana barnaamijka sanadan taabagelintiisa iskale magacaaga adoo ku bilaabay kusoo barnaamijka magacayga Liibaan Abshir waaye Liibaan barnaamijka markii ugu horeysay markii ugu horeysay waaya su'aalahan waxay ku xusnaan 1 ilaa lambar 4 laba lambar way naga baxday oo ah 1 iyo 3 waxaa noo soo haray 2 iyo 4 warshadii rasaasta Soomaaliya waxaa laga rabaa magaaladii iyo markaasi gobolkii ku taalay waxaa magaalada Maxadaay waana gobolka Shabeellaha Dhexe Maxadaay gobolka Shabeellaha Dhexe waayahay si sax ah kaga jawaabtay maxaa ku suurtageliyay aqoontii waxa la akhriyo oo taariikhda Soomaaliya badan way aad u maasantahay warshadii rasaasta Soomaaliya waxa ku taalay degmada Maxadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe waa hagaag waxa guddoomaya markaas barnaamijkan su'aashan jawaabtii ku xusneed ama hadiyadii ku xusneed oo BB Bank ugu tala galay maxaa fariin oo diraysaa barnaamijka ay soo kala BB Bank markuu waxa salaamayaa TV-ga rajo waxa kale oo ku diraa inay ka faa'iideystaan yani bisha Ramadaan khayraadka iyo waxyaabaha badan oo la sameeyo inta soo goobna salaam alaykum salaam aad ma santa hagaag daawadayaal waxaan jeclahay inaan intaa ku soo afmeero barnaamijkii garoo guddoon maalinkii 26aad bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadan barnaamijka sanadii labaad oo xiriir ayaa Raj TV ka daawanaysan barnaamijka sanadan xiise gooniya ayuu xambaarsan yahay markaasi waxaana taabagelintiisa iska leh bangiga BB Bank intuu hawada ka baxayay farsamadii kaamirada barnaamijka Cabdisalaan Axmed Iblaawa ayaa ka hagayay daahir diinana oo idin la socodsiinaya tan iyo barnaamijkan lamid intaan dib ugu kulmi doono maalinka 27aad bisha barakeysan ee Ramadaan baadi barnaamijka oo idin leh nabadgelyo